xayawaanka haddii aad saaxiib ka dhigato waa suurtagal inay kaa dugaashadaan dadka kale mararka qaarna ay kaa bartilmaameedsadaan bulshooda kale gaarana nuure waa gudoomiyihii hore ee degmada Garbaharey balse hadda waxa uu xanaaneeyaa tiro raxa shimbiraha kuwaas oo qoodiyo subax walbo Antallaahi ama Quntallaahi booloboolada ayaa kamid ah shimbiraha uu qoodiyo waxa ayna ka dhex garanayaan bulshooda kale si aad ah ayayna saaxiib ula yihiin mar aan waraysi la yeeshay waxa uu ii sheegay hadda inay ku ballansan yihiin inay shirarka kala qayb galaan wafuudda magaalada imaanaysana ay la soo dhaweeyaan sidoo kalena munaasabadaha cajiibka ah ay kala qayb galaan xafladahooda gaarana nuure waxa ka muuqata haddana subax walbo kama daalo qoodinta shimbirahan shimbiraha waxay ka kala yimaadaan goobo kale waxa aynu ku sugaan goobta uu ku qoodinayo subax walbo iyaga oo markii aad daawato ay saaxiib dhow kala yihiin bulshada kale ee goobta ku sugan dhowr sano ahaan arrintan ka shaqeynayo xawayaankan wax siinayay xawayaankan waxaan ku fakiray horta naflay baahan inuu yahay oo aan wax siiyo tan kaleeto waxaan jitaabinayay naflayda ilaahay uumayoo dhan nooc kastoo tahay haddii aad nabadgeliso way ku aamini haddaad wax siisana way ku jeclaan shimbirahaanu laba nooc weeye kuwa waa midkan waaweyn oo waxaa annagu Cantallaabaa nidhaahnaa dad Qundullaa yidhaahana ugu jiraa nooca kalena booloboolaa la yidhaahaa ilaahay baa meeshaan ku beeray waxaa sabab u ahaa biyahan meesha jiifa oo togaan Garbaharey oo doog iyo aaran iyo abaarba aan biyo laga waayo biyo iska jiifaan yuu ku dhex noolaan jiray oo wuxuu ka guran jiray lullumada iyo malayga iyuu ka guran jiray meeshaanaan ku arkay waqtiyadii abaaruhu dhaceen oo aad u liitaan dareemay inaan asaga wax siiyana waa damay bini'aadamkana waxaan tusahayay wixii aad wax siisay inay ku jeclaan hayaan wixii aad nabadgelisana ay hadda ku aaminahayaan taasaan tusahayay wuu ila saaxiibay dadkoo dhan buu bartoo aad ugama cararahayo anigana markuu arko wuu igu soo yaacayo meel aan kastaa rabaa waxaan hadda sii rajaynayaa inaan sii baro inuu shirarka nagala qayb galo shimbirahan ay nagala qayb galaan oo waftiyaasha nala soo dhaweeyaan oo dadka dhex socdaan yaan rabaa inaan sii gaarsiiyo haddii ilaahay idmo intaasoo hawlana waa ka qabta saaxiib baad marka ka dhigatay oo waa saaxiibada caadi ah saaxiibada caadi ah weeye way aamineen saaxiib bay ila yihiin markay arkaan bay soo aadaan waxbaan siiyaayoo hilib baan siiyaa iyo magaaladan wax uga soo aruushaa caynkaasaan baalladan isku qaabil muddo intee la eg baad marka hadda wax siinaysaa ilaa dhowr sano ilaa 4 sano waxbaan siiyay dadku markay ku arkaan adoo wax siinaya marka maxay ku dhahaan dadkan waxay yiraahdaan shimbirahan markaad wax siinayso ma dadka wax siis waxaan ila shimbiruhu marna waa naflay inagoo kala ah oo baahan marka kaleetana dadkan ayagaaba ka duca badan sababtoo ah ayagu xaaraan ma cunaan boolin ma cunaan waa caynkaas laakiin dadkan ayagaaba xoogsi iyo xalaal iyo xaaraan waxay cunaan ayagaa xoogsanaya waa naflaydaas baahan ninna ma baryahayaan bannaankaasay iska joogaan marka dadku wuu la yaabaa laakiin wuu bartay hadda dad badan baa danaynaya soo dhex galaan oo arkaan oo fiirsadaan oo sawirtaan dad badan baa danaynaya tira ahaan marka waaga aad la saaxiibaysay inta waa ka badnaayeen mise waa ka yaraayeen ayagaa marba kala taga labada noocba mar buu aalaa tagaa oo dhowr bilood maqnaadaa markii Cantallaagu tago waxaa meesha kaga hara 2 xabo ilaa 2 bilood ama 3 bilood buu maqnaadaa wuu yimaadaa isagoo dhan wata yuu noo yimaadaa boolobooladuna sidoo kale weeyo ayana 2 xabo uga harta meesha dhowr bilood bay maqnaataa way timaadaa marka intaan way ka yaraadeen waa soo bateen hadda inkastoo malaynayo maalmahan in qaar dhoofay waa gartay maxaad ugu baaqi marka dadka Soomaaliyeed iyo cid walba oo arkaysa xanaanada aad u hayso shimbirahan waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa
iyo dadka reegaya soomaalida oo dhan ugu baaqaya inay arkaan oo ogaadaan nafleyda in lala dhaqmi karo oo waxay aad wax siiso ku jeclaan hayaan waxaad ammaan gelisana ammaan gelin hayaan kuwa dadka walaalahooda oo ilmo adeeradooda oo la Soomaaliyo la diin oo la dariska allayn haya waxaanu dhaqaalaynaynaa xawayaankii bannaanka shimbirihi nooc kastoo dalka ku nool baanu heshiis la gelaynaa nooc kastoo dalka ku nool yaan rabnaa inaan nabad gelino markaan nabad gelino saasii noo aaminaya ayagu ha isbadbaadiyeen baan leenahay bal nafleyda kale sida daayo ayagu ha isbadbaadiyeen waxna ha isku tareen si ay isu aaminaan waxna isu siiyaan oo isu jeclaadaan jiraan Xuseen Yuusuf TV-ga caalamiga Somali Cable Garbaharey xarunta gobolka Gado.